أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دالكي لا يمذي الله يوي قرقان وعي قلنتا الريان وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى وحان ورديا ورديا دكسي ذو آذى mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee waalidka waxaa ka mid a waxbarashada iyo casharka ilmahooda waa in ay isku dayaan inuu hal dugsi wax ka barto oo aan sidii reer guuraagii dhowrkii biloodba dugsi cusub loo kaxayn ama la geyn ilmuhu markii ay waalidku macallin cusub u geeyaanba in dib loo celiyo waxay sabab u noqotaa inuu niyad jabo oo uusan weligiis dhowr jus iyo wixii la mida dhaafin weliba waa markuu arday fiican yahay haddii kale isagaaba macalinka isaga dhigaya jaahil dhagaweyn oo aan waxba ka aqoon waxaan uu macallinku weydiinayo si meel hoose looga bilaabo waxbarashada oo uusan ugu dhibtoon marka waa in ay waalidku ka taxadaraan arrimahaas oo dhan sida ugu fiicanna waa inuu marka horena sida aynu sheegi doonno casharadiisa iyo waxbarashadiisa kalaba ula socdo dugsiga uu geynayaana uu yahay mid leh qoraal caddaynaya cashar kasta iyo sida uu ku ahaa ardaygaasi oo ay waalidku hubin karaan sida manhajka alrayaan uu nidaamkiisu yahay oo cashar waliba markuu dhammaado uu u wato hubin macallinka iyo waalidkuba ay soo saxiixayaan waalidku waa in ay si joogto ah ula socdaan casharka carruurta kana hubiyaan in ay soo bartaan inta ay guriga joogaan maadaama waqtiga dugsigu laga yaabo inuusan ku filnayn ama nidaamka macallinku yahay in fasalka cashar sixidda iyo dhagaysiga xoogga la saaro waana in ay ka ilaaliyaan in ay wax kale ku mashquulaan iyagoo aan casharkii weli baran oo u sameeyaan waqti u gooni ah barashada casharka iyo naqtiinka casharadii kale ee dugsiga sida kuwii tarbiyada islaamka iyo wixii lamida macallinka dugsigu wuxuu xaq u leeyahay inaad u keento arday isagu waxbarasho u diyaar ah qalabkiisuna u dhan yahay waalidku waa inay ogaadaan in haddii uusan ardaygu u soo jeedin waxbarashada uusan si kasta oo uu macallinku u fiican yahay ku khasbi karin inuu waxbarto waxaase laga rabaa in warbixinta ardaygooda ku saabsan uu la wadaago waalidka ardayda qaar waa iska caadi inaysan xifdiga ku fiicnayn lagana yaabo inay dugsiga ka faa'iidaystaan maadooyinka kale sida qur'aanka oo ay akhris ahaan kitaabka uga bartaan iyo islaamka oo ay fahmaan haddii dugsigu muqarar wax fahansiin kara oo si fiican loo dhigayo uu raaco muqararka arrayaan oo wacyigelintani qaybta ka tahay waa mid loogu talagalay inuu sifooyinkaas yeesho waalid ahaan sidee ula dhaqantaa buundooyinka waxbarasho ee ilmahaaga dhanka waxbarashada waxaa caado inoo ah in xoogga la saaro in ilmuhu uu maado kasta ka keeno star iyo wixii lamida oo laga dhaadhiciyo in helidda buundadaasi muhiim u tahay shaqo helidiisa iyo nolol fiican ku noolaanshihiisa mustaqbalka isku xirka buundada fiican iyo guushu wuxuu raad xun ku yeeshaa waxqabsiga ilmaha markay koraan wax kasta oo ay waayaan ama gaari waayaanna waxay ku keenaysaa inay isu saariyaan sababteeda oo iyagu isku dhaliilaan ama eedeeyaan haddaba waalid ku boori inuu ilmahaagu marka xigta isku dayo inuu u dadaalo si ka sarraysa sida uu hadda u dadaalay eedna uusan ku lahayn hadduu intii awooddiisu ahayd uu dadaalkiisu ahaa khasab ma aha in arday waliba uu ay keeno waana macquul ardayda qaar in aysan dadaalkii laga rabay la imaan laakiin waxaa la rabaa casharkaas in loo fahansiiyo ama loo geliyo si kale oo aan ku yeelan raad xun ma aha in ilmuhu ay fahmaan haddaadan ay keenin nolosha waad ka dhacday noloshii oo dhan waa kaa kharimatay iyo waxa la midka ah weliba innaga diinteennu waxay ina tusaysaa in wixii dhacay ay qadar rabbi ahaayeen laakiin loo baahan yahay in casharo laga barto si looga hortago in ay mar kale dhacaan marka waa in mustaqbalka xoogga la saaro ee ma aha in lagu haaraamo in uusan ay keenin lagu dhiirigeliyo in uu dadaalay laakiin loo baahan yahay inuu marka soo socota ka sii dadaalo
sidii uu u dadaalayay wakhtigan niyaddana sidaa loogu dhiso maadooyinka iskuulka iyagana waa inaan laga badbadin tusaale hadduu maalintii oo dhan fasal u fadhiyey waxaa laga yaabaa inuu 8 saac ama 9 saac ama 10 saac uu fasal maalin walba 5 maalmood ama 6 maalmood uu fadhiyo intaasna uu baranayay maadooyinkaas iskuulka ama ay ahayd inuu barto maadooyinkaas iskuulka markuu guriga yimaado galab walba ama fiid walbana waxa uu heli jiray ama sida caadiga ah waa inuu helaa waqti naqtiin iyo ka shaqaynta wixii shaqo guri loogu soo diray haddaba in haddana weekendigi maalmihii uusan iskuulka lahayn ama jimcade ama sabti iyo axadde marba meesha aad joogto la yiraahdo waxaa la geynayaa private tuition waa inuu intaasoo saac ama gelin uu halkaa isla maadooyinkii uu usbuuca dhan har iyo habeen ag fadhiyey looga dhumiyo wakhti kale oo weliba lacag lagu bixiyo waa isku day in khasab maskaxdiisa lagu kala furo oo maadooyinkaas lagu dhex gasho saxna maaha oo ardayga caadiga ah intaasi waa ku filan tahay yacni in uu maanta iskuulkiisii jiray naqtiinkiisii iyo shaqadiisii gurina uu guriga ku samaystay macalinkiisii ayuu wixii uu fahmi waayay dib u weydiin karaa haddii aysan guriga u joogin cid kale oo ka caawin karta macluumuna maaha in tuwishinka la diidayo ee waa ka badbadinta iyo dayicidda wakhtigii uu ama diintiisa baran lahaa ama ku ciyaari lahaa oo uu wakhti uu naftiisa cayaaro heli lahaa macluumuna maaha in tuwishinka la diidayo ee waa ka badbadinta iyo dayicidda wakhtigii uu ama diintiisa baran lahaa ama ku ciyaari lahaa oo u noqon lahaa wakhtiga firaaqada ah dhibna ma leh in haddii uu maado ku liito loo helo qaab looga kabi karo ee in waxa kaliya ee laga fakaraa ay mar kasta noqdaan dhowrkaas maado ee iskuulka waxay ilmaha ku beeraysaa in iskuulku ka mudan yahay diinta iyo dugsigaba waana faham khaldan oo aad uga jira guryaha arday maalin kasta aan iskuulka ka daahin markii uu dugsiga leeyahayna aan lagu kari karin hurdada ka kaca shaki ma leh in iskuulkaasi si uun ugaga duwan yahay dugsiga aad la leeyahay waalidkuna barbaarintaasi meeshay ka soo khaldantay dowr bay ku leeyihiin sida dugsiyaduba ugu leeyihiin oo aan loola xisaabtamin ardayga sida iskuulku ula xisaabtamo marka waa mas-uuliyad la wadaago oo u baahan in la isla fahmo lana saxo mararka qaar waxaa dhacda in waalidku kaba soo horreeyaan ilmaha oo ay u raadiyaan marmarsiinyo iskuna dayaan inuu macalinka dugsigu aqbalo in ilmahaasi ay nuso saac kaliya joogaan dugsiga amaba ay soo daahaan dhowr saac iyo wixii la mid ah maxaa yeelay 6 bari bay iskuul jiraan 5 iskuul ah iyo maalin tuition ah maalintaas kalena ama labada maalmood oo dugsiga xoogaa nasasho ah inuu heluu rabaa marka cidda qaadanaysa culayskaas waa inay noqotaa dugsiga waa arrin u baahan waalidku in ay si fiican isaga eegaan dhankana aynu ku eegno mas-uuliyadda waalidka ee dhiirigelinta ilmahooda hor iyo horaanba waalid waa in ay ku kala saarnaadaan dhiirigelinta iyo laaluushku ilmuhu waxay xariif ku yihiin inay siyaalo kala duwan uga faa'iidaystaan jacaylka iyo xanaanka aad u qabto haddii aadan ku baraarugsanayn tusaale gabadhaada arday qur-aanka ah ee bilowday juska afraad ayaad waxaad ku tidhi hebnoy haddii aad juska afraad dhammayso bisha 5aad waxaan ku siinayaa 100 gini usbuucyadii ugu horreeyey ayay si fiican kuu tustay inay dadaalayso laakiin meel dhexe ayay ku banjartay oo waxaad aragtay iyadii oo isbedeshay oo aanba horeba u socon ooyo ama aabe maxaa kugu dhacay waad fiicnayde ma ilowday ballantii inoo dhaxaysay wax yar baa kaaga dhiman inaad gaarto iyo wixii la mid ah ayaad ku beer laxawsatay iyana waaba say rabtaye gorgortan cusub ayay halkaa ka bilowday ooyo waa hard waa adag yahay I can't do it it's hurting it is a lot of time leen waalid baa tahay xoogaa in ay ballantaasi shaqaysayna waad soo aragtay intaad isyara ilowdo ayaad leedahay ooyo ama aabe 200 ayaan kaaga dhigayaaye intaa yaree ku hartay israacsi ama dhamme iyana farax iyo haye ayay isugu kaadari haddaysanba kula sii gorgortamin xaruurta qaar waxaa ku jira gaarsiin kara juskaas 100 geni laga soo bilaabay 400 ilaa 500 inay ku helaan marka xaggee wax ka khaldan yihiin hor iyo horaan dhiirigelintu waxay qofka ka abaalmarisaa yool uu gaaray isla markaasna ku caawisaa inuu ka helo hididiilo cusub oo uu hor ugu sii socdo laaluushku waalidkeeda oo waa aan gaaray keen horna wuxuu u yahay inuu meel dhexe istaago oo uu haddana ka gorgortamo aan sii socdee badi iyo wixii la mida waa tan xigtee waxaa muhiim ah in xitaa haddii aad ilmahaaga ku tiraahdo haddaad suurad heblo wakhtigaas ku
gaarto waxaan ku siinayaa waxaas iyo waxaas, walow ay kasii fiican tahay in la raaciyo ama aad u dhowaato iyo wixii la mid ah oo laga yaabo awooddii ilmaha in uusan meeshaas aad u xadiday gaari karine, ama la yidhaahdo haddaan kaa arko inaad si daacad ah u dadaalaysay yaadanba gaarine iyo wixii la mid a. laakiin loo raacsho haddii aadan daacad u dadaalin ama aadan ka agdhowaan suuraddaas waxaad dayacday mas-uuliyaddaadii, waxaana ka ratibmaysaa ciqaab inaad usbuuc qolka nadiifiso ama weydo wakhtigii aad waxaas fiirsan jirtay iyo wixii lamid. ciqaab ficil ku jiro oo ay qaban karaan oo ay og yihiin, adna aad og tahay inaad fulin doonto, oo ku caawinaya inuu ka fakaro dayacaadda uu sameeyey amaba ay samaysay. waalidku waa in ay go'aan leeyihiin oo wixii lagu heshiiyey fulin karaan, noocay noqotaba, ciqaab, dhiirigelin iyo abaalmarinba. ilmaha ku kora iyagoo helaya wax kasta oo ay rabaan, waxay koraan iyagoo aaminsan inay dadka kale wax kasta ka mudan yihiin. marka ha u iibin wax kasta oo ay rabaan ama aad adigu suuqa ku aragto, laakiin isweydii in shaygaasi uu muhiim u yahay ama xitaa uu wax ka faa'iidayo ilmuhu. bar inaad maya tiraahdo. waalidka qaar baan iyagu markay yaraayeen koolkoolintaas helin oo sidaa darteed ilmahooda aan war ku celin karin. qaar baa si ilmahoodu raalli uga noqdo isaga laaluusha oo waxay rabaanba ugu iibiya. ogow inaad ku beerayso dareen ah inay dadka kale ka mudan yihiin wax kasta, hadhowna sidaada oo kale iyo ka daran ay dhaqaalaha u beerdarayn doonaan. waxaa ku tallaalmaysa inay ciddii lacag siisaba jeclaadaan, daba ordaan oo raalligeliyaan. waa inaad hadda ku tarbiyaysaa qiimaha lacagta iyo mas-uuliyadda isticmaalkeeda la socda, iyo inaan lagu helin bilaash ama cid kugu siinaysaa bilaash aysan jirin. loo baahan yahay inuu qofku kasbado oo uu shaqaysto. haddana aynu eegno dhinaca maqalka ilmaha. waalid ma ku maqlaan ilmahaagu? adayga aan xirfadaysnayni wuxuu keenaa lidka wixii qofku rabay, siiba markii dadka laga hadlayo. oo nabigeennii subanaa sala allahu calayhi wasalama ayaa rabbi ku yidhi, walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum. haddaad ahaan lahayd mid adag oo qalbigiisu dhagax yahay, way kaa kala yaaci lahaayeene iska cafi. isaguna sala allahu calayhi wasalama wuxuu inoogu caddeeyey xadiidkii bukhaari in alleh subxaanahu wa tacaala uu wax kasta la jecel yahay jilicsanaanta, sahlanaanta iyo deganaanta. marka sabab ayay adkaantaadu u noqon kartaa in aydaan ilmaha isfahmin ama ay kaa anfariiraan. macnuhuna maaha sidii aynu hore u soo sheegnay inaad noqoto mid jilicsan oo waxay rabaan ay ku fushan karaan. waxaa dhici karta in sababta ay kuu maqlina yihiin ilmahaagu ay tahay in adiga xirfadaadu ay koobnaatay, amaba inuu isagu ku guulaystay inuu adigaba kuu tababaro sidii uu rabay. ilmahaagu waxay ku bari karaan inaad qaylanow noqoto, inaad cay-un dusha uga rarto, ama inaad wax yeesho oo aad tuuriyo ama halgaad ama wax ka xun ku samayso, oo markaas ay og yihiin inaad dembi qaanuuni ah ka gashay oo ayba gacanta sare iyagu yeelanayaan. haddii ilmuhu ku maqli waayaan wax aan kuu qalmin ku leeyihiin ama aadan ka helin ixtiraamka aad ka mudnayd, ha qaylinin, ha caayin, gacanna ha u qaadin. ikhtiyaarka isaga sii oo kala dooransii inuu kala doorto inuu ku maqlo, ku ixtiraamo iyo wixii la mid ah, ama uu ciqaab aad horay ugu caddaysay oo dembigaasi leeyahay uu ciqaabkaas doorto. ciqaabtu waa inay tahay wax aad fulin karto ama aad rabto inaad fuliso. tusaale, haddii ilmo yar oo 3 jir ihii kaa maqli weyday inay ku raacdo idinka oo jidka socda, inaad ku tiraahdo, hebloy ma lugahaagaad ku soconaysaa oo igu soo raacaysaa, mise kuwayga ayaad dooranaysaa inaad ku socoto oo igu raacdo? waxaad ula jeedaa mar walba waad raacaysaaye adigu kala dooro inaad lugahaaga si tartiiba ugu socoto iyo inaad anigu ku qaado aad lugahayga ku socoto. halkaa waxay ka dareemaysaa inay go'aan qaadanayso, waxayna badanaa dooranaysaa inay iyadu socoto. kuwa waaweyn waa sidoo kale, ee keliya waxa laga rabo iyo waxa lagu ciqaabayo ayaa kala duwanaanaya. marna diidmadooda ha ka dhalin xukunno kale sida inay shaydaan tahay iyo wixii la mid ah. keliya waa wax ku eg dareen aan daa'im ahayn oo markaas ku simane. ciqaabta iyada ka waran. ciqaabidda markii la mutaystaa waa inay u dhacdaa si xaq ah, raad fiicanna reebtaa. khaladka sida daacadda ah isaga dhacaa uma baahnaa ciqaab, oo waxaa laga yaabaa in cunugu uu caawimaad ama sixid u baahan yahay. haddiise ay muhiim tahay in la dhadhansiiyo xoogaa ciqaab ah, waa in ay noqotaa mid ku caawisa inuu dib uga fakaro wixii uu galay, oo ku dhalisa inuu go'aan qaato
inuusan ku noqon ah. waxa lagu ciqaabayaa waa in ay wax si cad horay loogu heshiiyey yihiin ee aysan ku xirnaan marba sida xaalka waalidku yahay. waxa ay moodka yiraahdaan hadduu aad u caraysan yahay ciqaabtu aad bay u kulushahay, hadduu faraxsan yahay ciqaaban waxba ahayn ayuu ciqaabayaa, hadduu meel dhexe joogana waa siduu damco. qaabkaani wuxuu ilmaha dhaxal siinayaa inuu khalad ka fahmo quwadda waalidka ee isla wadata dacweeyihii, garsoorihii iyo xukun fuliyihiiba. waxayna baraysaa in mar kasta ciddii xoog lihi ay waxay rabto samayn karto. ciqaabaha raadka fiican yeesha oo ay dareemaan waxaa ka mid ah in shaqo siyaado ah la duldhigo iyo inay waayaan wax ay rabeen iyo wixii la mid ah. maalgashi iyo gebagabo. huridda dhaqaale maaha mid adduun oo keliyahe, waa maalgashigaaga aakhiro. ilmahaagu waxay ka mid yihiin dhowrka camal ee kuu socon kara markaad dhimato kadib haddii aad hadda maalgashatay oo aad ku saaciday inay saalixiin noqdaan. ogow, iyadoo ay wax fiican tahay inay Oxford ka soo baxaan ama Cambridge, macnuhu maaha inay saalixiin yihiin. saalixna waxa keliyahoo lagu noqon karaa waa diinta oo lagula dadaalo oo laga soo saaro qof wax garanaya oo qiimayn kara oo ilaahay xaqiisa iyo tan dadkaba yaqaana oo ay ku jirto adiga xuquuqdaadu. marka ku dadaal inaadan adduunka uga tagin kuwa xogaagaad uga dhimatay ama waxaad bartay ee maadiga ahaa macaasi ku fala oo sabab kuugu noqda in dembi lagaaga soo diro adoo mootan. iska daa in ajar lagaaga soo diree. hadda ayaad fursad haysataa. guushaasna haddaad ku tala gasho cid kugu kaalmaysa waad heli kartaa, sida dugsiyada isticmaalaya manaahijta Ar-Rayaan oo raaca nidaamkeeda iyo kuwa la midka ah. ku dadaal inaad wakhti iyo maalba u hurto sida carruurtaadu u noqon lahaayeen kuwo iyagoo noloshooda adduunna dadka ula mid ah iskaga filnaada xagga diinta oo ku xiran allihii abuurtay, xambaarsanna ilayiskii ay wax ku kala saaran lahaayeen markii mugdiyada adduunku ay weerarkoodii ku soo qaadaan. waxaan rajaynaynaa inaan xoogaa kaaga iftiiminay waxyaalo badan oo kugu kaalmaynaya gaaridda yoolkaas iyo gudashada mas'uuliyaddaada. ogowna mas'uuliyadaha la dayaco waa la iskala xisaabtami doonaaye. arday ahaan, ardaygu waa inuu fuliyaa dhammaan heshiisyada nidaameed ee dugsiga ee la xidhiira waxbarashada, akhlaaqda iyo nidaamkaba, kuwaasoo isugu jira noocyo badan sida kuwa ah intuusan dugsiga imaan. tusaale, inuu wakhtiga ku yimaado, inuu yimaado isagoo fresh ah oo u diyaar ah waxbarasho, inuu dharkii lagula heshiiyey iyo qaabkii loogala heshiiyeyba u qabo. dad waxaa jira soo istaalis garaysta, gabdhuhuba ugu badnaadeene, inuu waxbarasho ahaan isu soo diyaariyey, inuu wato dhammaan qalabkii waxbarasho ee laga rabay iyo wixii la mida. nooc kale waa kuwo laga rabo intuu fasalka joogo sida tiraamidda iyo dhagaysiga macallinka, raacidda aadaabta fasalka, inuu hawsha laga rabo ku ekaado oo uu ka soo baxo, inuu ardayda kale iyo qalabka fasalka ilaaliyo oo dhowro, inuu ka qayb qaato ilaalinta nadaafadda fasalka iyo wixii la mida. waxaa kale oo ka mid ah nooc la xidhiira macnawiyaadka iyo dareenka ardayga, oo ardaygu waa inuu fahansan yahay in waxbarashada dugsigu ay dantiisa tahay, faa'iidada uu ka helayaana ay ka qaalisan tahay tan uu ka helayo iskuulka, maxaa yeelay aakhiradiisa iyo adduunkiisaba way anfacaysaa. waxayna baraysaa xaqa allihii isaga abuurtay iyo waxa uu u abuurtay, xaqa waalidkii dhalay ee koriyey ku leeyihiin, iyo dhaqanka wanaagsan ee ummadda uu la nool yahay kula dhaqmi lahaa. marka ardaygu fahansan yahay arrimahaas, waxaa meesha ka baxaya dareenka inuu noqdo arday lasoo khasbay oo aan isaga dani ugu jirin dugsiga ee waalidkiis uu qancinaya ah. isku soo duuduubo, ardaygu waa inuu leeyahay sifooyinka ardayga fiican, yahay arday waxbarasho u diyaara, qalabkiisii waxbarasho u dhammaystiran yihiin, wakhtiga ilaaliya kana faa'iidaysta, ixtiraamo macallinka oo dhagaysta, qaanuunka iyo ardayda kalena ixtiraama, dareensanna sababta uu dugsiga u yimid iyo ahamiyaddiisa. ardaygaas ayaa wuxuu noqon karaa ardayga loo baahan yahay inuu noqdo midka fadhiya fasalladeenna. haddaba waalid iyo ardayba waxaan rajaynaynaa in aad ka faa'iidaysateen waxyaalaha yar ee aynu idinku soo koobnay halkan. wasalaamu calaykum waraxmatullah. أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو وحان ورديا دكسي ذو آذان وحان ورديا دكسي ذو آذان
إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي إنن أقن كورسالو دالكيغا أنفعي دادالكي لا يمده الله يروي قرقان